shaqo joojintan ay sameeyeen gaadiidleyda iyo ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa timid kadib markii sida ay sheegeen ay xamili waayeen lacago badan oo maamulka Hirshabelle uu ku soo rogay gaadiidleyda. warbaahinta ayay kula hadleen deegaanka bacda kore ee hoostaga degmada Matobaan. dhaliil ayay maamulka gobolka Hiiraan u jeediyeen madaxda ugu sareysa maamul goboleedka Hirshabelle waxa ay ka dalbadeen in cabashadooda ay soo farageliyaan. cabashadeena anaga horta waxaan ka koobanahay ganacsatada gobolka Hiiraan. cabashadeena waxay tahay dhibaato ka timid maamulka Hirshabelle awgeed oo lagu soo kordhiyay canshuur saa'id ah in macnaha arrinkaas ay wax ka qabataan ay suurageli diiday. sidaas awgeed anaga waxaan go'aansanay markaas inaan gaadiidkaanada aan xanibano oo ganacsiga gobolka aan joojino ilaa culeysana qaadi karnaa meeshii yimiday. marka waxaan ka codsanaynaa dawladda dhexe iyo maamulka Hirshabelle in arrinkaas ay wax ka qabtaan. canshuur lacag $300 ah laga qaadi jiray anaga oo ku bixi jiray kontaroolka Kalabeer. qaybo kamid ah marka maamulka Hirshabelle kamid oo ka gadooday ayaa canshuur in la eg intii ah dhigteen $300 oo kale markay dhigteen marka anagu lacagtii inaan bixino waa awoodi waynay. sidaas awgeed ayaan shaqo joojin u sameeynay oo ganacsiga gobolka aan istaajin anaga ilaa Soomaalidu waxay tireen laba dibi meesha ku dirta xabaa ku baaba'do. anaga masaakiin aan nahay ganacsato yar aan nahay inaan marka culayska aan joojino oo si culayska wax looga qabto aan shaqo joojinta u sameeyno anaga. wada kaxeynaya mid kamid ah gaadiidka ku xaniban deegaanka bacda kore oo dhankiisa aan la hadalnay ayaa cabasho ka muujiyay in wax ka badan 6 saacadood oo halka ku xaniban yahay waxa uuna ka dalbaday in isu socodka dadkii gaadiidka dib loo furo. aniga gaarigan meesha tagan aan wataa 1260 kiiloomitir ayaan ka imid Boosaaso magaalada Beledweyne ku socdaa. magaalada Beledweyne u dhashay ama gobolka Hiiraan u dhashay aan igu badan 1100 xoogaa kiiloomitir waa soo jaray. hadda bacda lagu celiyaa hadda maamulka gobolka Hiiraan ninkii u sareeyay iyo koox kale ayaguna maamul gooni sheegana meesha isku haayo. gobolka gobolka raba inuu waxaas xaliyo macaaniyeen waxba waa ka qaba waayay. marka sababtaas meeshii waa haysadani rajadaydu waxay tahay maamulka gobolka waa la hadlayaa diilaahay waxaanu sheegayaa meeshaas u sareeyo. gobolka wuxuu matalaa madaxweyne gobolka Hiiraan asaga gobolka ka ah. waxaa rabaa dadka dhibka meesha ka wado inuu xaliyo asugu gaadiidka lacag uu ka qaataa. saa markuu socdana $300 ka qaataa. xaq markuu socdo xoolo wadane ama ari wado ama loo wadane $300 ka qaataa. intaas lacag gaadiidka qaataa. marka in hadana qolo kale jid ku gasho oo isbaara kale lacag kale la weydiiyo waa dhib. wax ka qaba markii la yiraahdo nimanka hadda lacag sidaan inta ana waa ka rabaa lacagta warkiisa jawaabtiisu taasay noqotay. waxaan ku dhaleelay meesha ninka $300 qaadanaysa soo socdo lacagtii baabuurta dhameeyay asaa laga rabaa inuu amaan keeno. asaa dawlad baan ahay. dawladuna meesha joogto amaan laga rabaa. canshuurta iyo qarashaadkana iyada qaadanayso. marka koox isbaar dhigtay inay soo agdegaan oo yiraan aniga jidkaan goynaynaa lama rabin. waxa rabay kuwa jooga Kalabeer oo fuustooyinka u yaaliin in inta agdegaan fuustada ay ku dhuftaan yiraan adeerada amaankiina waaye wax lacag lagu siinaa ma laha oo baabuurtaas uga deeyaan gaadiid taas laga rabay. laakiin inta beer gadiidga jidkaan goynaa yiraan ma aha wax macna keenayso. ganacsatada iyo gaadiidleyda iskaashanaya ayaa dhankooda waxay inta kadib ay bilaabeen inay hakiyaan isu socodka dadkiga gaadiidka iyaga oo tuban deegaanka bacda kore ee waqooyiga gobolka Hiiraan. gaadiid badan oo sida xamul kala gedisan ayaa wali ku xaniban deegaano hoostaga degmada Matobaan ee gobolka Hiiraan kadib markii maamulka degmada Matobaan ee Hirshabelle dhawaan uu gaadiidka ku soo rogay qaadista lacag canshuur ah halka gaadiidka horey maamulka gobolka Hiiraan lacag canshuur ah uu uga qaadi jiray isgoyska Kalabeer taasi oo gaadiidleyda ay u arkaan laba geeriyood. gaadiidka qaadi jiray xoolaha iyo qudaarta ee ka bixi jiray Beledweyne aroor walba iyo waliba gaadiidka ganacsiga kala gedisan wada ee dhankooda iyana ka yimaada gobolada dhexe qaybo kamid ah ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo gobolada waqooyi ee dalka ayaa dhamaantood ku xaniban deegaanka bacda kore lamana oga goorta xaalku sidan uu iska bedeli doono. haddii ay xaaladdu sidan ku sii socoto waxaa jira walaac badan oo laga qabo in sarukac uu ku yimaado qiimaha raashinka oo inta badan la ogsoon yahay in ganacsiga Beledweyne uu ku tiirsan yahay magaalada Boosaaso.